shaqaale weynaha kala duwan ee shirkadda laydhka casriga ee Telesom Electronic ayaa saaka si weyn uga qayb qaatay ololaha nadaafadeed ee ka socda gudaha degmada Togwajaale. Ololaha nadaafadeed ayaa hore u ilaamiyay maayirka degmada Togwajaale Cabdiraxmaan Yuusuf Maxamed. kumanaan ka mid ah shaqaale weynaha kala duwan ee shirkadda laydhka Telesom Electronic oo ku labisan qalabka laga qayb qaadanay ololaha nadaafadda ayaa saaka si weyn uga qayb qaatay ololahani markii uu soo dhamaaday waxa halkaasi kula hadlay isla markaasina ka warbixiyay qaabka ay shaqaalaha shirkadda laydhka ee Telesom uga qayb qaadatay ololaha nadaafadeed. Gudoomiye ku-xigeenka shirkadda laydhka Telesom ee degmada Togwajaale Maxamed Cabdi Samed waxaana uu yiri kamid ah shirkadda Telesom qaybteeda laydhka kuna soconna magaca Telesom Electric Company oo aan kamid nahay maamulka sare ee shirkadda. waxaan halkan u nimid hawsha ay dawladdu maanta ku dhawaaqday ee ah nadiifinta magaalada. waxaan u leenahay waa naga soo asiibnay amarkii dawladda inagoo ka qayb qaadanayna nadiifinta iyo bilicda magaalada oo ah hawshii maanta loo igmaday dadka ee shacabka la wargeliyay. Khadar Cabdillaahi telefishinka caalamiga ee badda Cas 24 TV degmada ganacsiyeedka Wajaale gobolka Gabil.